Soomaali waa salaamaya meel kastoo dunida joogtaanba laba kalmad waxaan ka oranayaa ciil qabihii qamuunyoonay ee maamulka Hargeysa madaxda u ah waa nin ciil qab oo qamuunyoonay sidaas calooshiisu gubanaysa ummad nin ciil qaba markuu hogaamiyana waa sidaas ilkaha iskula dhacaya uu qamuunyoonaya nolosha ayuu cadow leeyahay ee dad kale la nool ayuu qamuunyoonaya oo ciilo haya wuxuu ku leeyahay dhul ma bixine dhulkan waan kreeyay buu leeyahay saasuu xumbo afku uga karanaya oo dhulka yaale ma baawala dhulkaad kareynaysa ma dhul aan lahayn waxaanad ahayn baad ismooday marka waxaanad ahayn markaa ismoodana sidaa un baad ciil u qabi awoodana lahayn baad isbiday waxaanad ahayn baad ismooday sidaa un baad u qamuunyoon adoo qamuunyoonaya diman oo ciil u yaale ayaa diban doonta dhulkana adigu ma lahayn adiga dhulka kareynayay ee haabalki broker dilaalka ahaa iyo ka kareysana labadiinba dambiilayaal baati kii lugta ka hoombinayay ee samaroon ee tirisometri dhulka kaana taariikhda dili doonta taariikhda ayuu u dhiman doonaa ninka walaalkii baan isu kala asaan jirnay axmed weli nin la idhaa oo ka yar isaga ay isu kala asbanahay ee lugta la'a abi xabashida ayaa lugta ka jabisay waa kii hoos socday dhulka mitirinay isagana taariikhda ayaa madoobayn doonta sidaas uu qamuunyoonaya wuxuu ku leeyahay markii dunidu nagu soo wada duushay xoog baan samaynay oo iskaga saarnay dunidee kugu soo duushay dunidii baad been ka sheegaysaa xoog aan lahayn baad sheeganaysaa cidba weyna dhaqaajini weyd markaa dhulkaa ku dagaalamayno inaad ka dhaqaaqdaan maaha dhulkiina markaad ku dagaalamaysaan gooja cadde ma adigaa lahaa ma dhul adigu aad lahayd bahayd maxaad ku dagaalamaysa soowaali uun maaha dadka been aad u sheegaysid qof ciil qaba oo ummad hogaaminaya consequence-gu waa ka waad ciil qabtaa qamuunya ku haysa nolosha ayaa necabtahay ummadda kale caloosha ayaa ka bugtaa cid oo waxaad ku samayn karto cid oo waxaad ka qaadi kartaana ma jirtee saan baad u ooyi adigoo ooyo unbaa lagu aasi doonaa oo nin dhintay oo ciil qaba iyo nin aad waxba ka qaadi karin maanta siyaad bare aad ka hadlayseen isagoo dhintay ayaad ooyeysay oo halkaa ka caayaysa marka adigoo ciil kaa qaba siyaad 40 sano ku dhawaad buu sii mootay ee waanad welina waad u ciilnoonayso adigii maalintii xumbada karinay inankana ciil baa ku haya qaar baa kugu yidhaa reerkii waxay dhahdaan ciidamada geeska afrika ugu xoog weyn waa Somaliland markaas urunu qaadanaya qamuunyo ciil qabe dhulka waan kareeyay kulama dhulka maadigaale ma guryahaagiiba sad u kareen kartaa iyaa ku sii awood dhulka Soomaaliyeed ku kareen karto adigu meel kale ku kareen karto dhulka reer baa iskale reer laba reer oo ciisiya samaroon la yiraahdo iskale mana kareen karto dhulkooda kuma dhacdi qamuunyo oo baad ku hayn halka Hargeysa joog oo kii seelac madax ka noqonaya soo magacaw oo kii loo yacada ka noqonaya soo magacaw intaasad ilaa imika ad ka awood ku leedahay inaad magacawdo qofka aad keen meesha kaaga shaqeynaya inta iyagu dulaysan yihiin way dulaysan yihiin ee kabaqaadka ku yihiin adiga kabaqaadka ku yihiin shalay qaar ba hadlaye oo la hadii la taabto abiib waan iscasilayna weer arday halkay joogaan beenayalaashi samaroonkan beenta u sheegay aawe halkay joogaan aw xaslaadi waxbaan sameynayna aw waxaad sameynaysin inan yar baa Masar xoreeyo dalka Masar la yiraahdo Masar wala nafar buu yiri hay awal ka joogtaan meel joogtaan ma jirto been baad sheegayseen hooyooyinka samaroon anagana dhale fariidadana been baad u sheegaysaan oranaysa anaga aadna xoreynayno anaga soo oranayno qaar baa lahaa dul qaato hooyooyinka samaroon oo dul qaata ma kuma jirto af Soomaaliga hooyada u hiili oo la jiijiiday oo madaxa la jiiday oo la duleysanayo oo la ihaananayo oo reer kale xoog ku haystaan u hiili hooyada ee dulqaadaha iyo iska dulqaadaha oran wax kale hadaad kari weydo kuwan ka celi kuwani kabaqaadka dayuusiinta ee daba socda wisheysiga kuwa wax ka qaba dad iyagii kari weydi wala ugu tirsanaya adiga wala ugu tirsanaya reer baa ku mitirsaday siya samaroon wala idin mitirsaday reer idin konool baa la idin mitirsaday waaba la gariiray wadarkaysa markuu Allah moos gariir u gariirayo oo qamuunyoonaya jirkaas uu gariirayo waa cabsi waa fulanimo waxa uu la gariiray ma wax kale ku dadka halkan uga hanjabi jiray subax walba meelahan u jooga gacal la waanaay wayeelkiisa
la yidhaahdo garuuje subax walba halkuu buushir jarayd qabtaayo dagaal baan ku qaadaynaa xamar baan qabsanaynaa puntland beritoole gara waan joognaa odhanay ayaa maalin dhawi daawaday waxaa daawaday batuun iyo ninkii kale markay isfeedhayeen isagoo ordaya oo surwaalku qoyan xagga dambe qoy oo sii cararayeen arkay habeen iyo maalin halkan uu ka hadlay isagoo hanjabaya markaa reerku waa iska soo muuse biixuun annagaa ugu xoog weyn ciidamada geeska afrika ciidanka somaliland baa ugu xoog weyn buu rumaysan yahay waxaa kaloon rabay raggani boorka jabuuti ka shaqeeya ciise war waxba ma tiidin idinka laftiin wax alla waxaa tiin ma jirto idinku waxaa tiin mudantii wadanka sidee inama yararoo gabiile ka yimaadeen haddaad seexataan haddaad bukootaan shaqada waan idinka eraya south africaad joogtaan waaba la eriyaba nin baa lagu eriyay iminka horoonaa omar maa la yidhi oo risaail waan bukooda oo leedma bukoon kartid haddii aad bukooto waa lagu eraya maxaa tiin markaa idinku idan ismaaciil margelle indhihiisu waddanka oo dhan ma eegayaane haddaydaan waxba diidayn soo wixii la doonay laydinku sameeya maaha labada inay hargeysa ka yimid iyo ninkan u shaqaynaya kabaqaadka u ah ee cadhaasida haddaydaan iska hagaajin marka ma ismaaciil ba siduu idinku arkaya sidaa unbaa dulliga u ahaanaysaa waa dullaysantiin ilaahay idin dulle ma anigu nin meeshaydii igu yimid oo martiya ayaa isagoo anigoo mudana halkaa intuu igu hanjabo odhan kara ma bukoonta kartid out of human dignity sharaftii bini aadanka oo maaha waxaas aad qaadanaysaan meeshani waxaa ka socda waa inaga weyn tahay waxba lagama qaban karaa boorka jabuuti waxaa ka socda iminka laba markab baa jooga oo xuutiyiintu duqeeyeen miduu baxsaday 800 kun markii la marinayay lahaamadiisi ayuu baxsadayba intuu iska bixiyey ayuu ka cararay midna uu xidhan yahay $2 milyan ayaa meeshii barosum ka soo baxay lagu soo dalacay way ka yaaceen shaqaalihii iyo dadkii saarnaa diyaaradii raaceen oo ka yaaceen oo waxay uga tageen insurance dalka sidaa loo galayo dadka sidaa u galay ma wadani ba lacagta intaa lay ku sameeyay qolooyinka insurance oo soo sharci soo saar maayaan jabuuti hamarina soo wadan maayaan marka qoladii reer gabiili waa waxaan wada farxaan iyo waxa la yiraahdaa nin la yiraahdo gooshe lacagta intaa lay ku soo dalacay marka madaxweyniina uu maqayo Shanghai isagoo joogo oo boorka dartii halka uu joogan arkay wuxuu keenay dalkii la marin idan halkan tuugadii baa joogtay kaarbalaada ris baa jooga halkan ku weynaaday oo meel kasta wax laga xada garanaya boorka ayaa jooga wala adaraya dalka Talyaanigu waa wadamada ugu horeeya Yurub dhaqaalaha wadamada ugu horeeya weeyaan warshadahana haddana waa fiqiir gobolada baa fiqiira maafiya joogto wax kasto soo gala maafiya cunaysa marka boorkan wax kasto yimaada maafiyada gooshe baa joog oo 60 aqal kule Jabuuti oo inka Mareykanka iyo Ingiriiska inuu guriga ka dhisto doonay ayaa joogay ayaa idinka qabanaya marka meeshii laga hadli lahaa iyo wixii aan qaban lahaynba way dhaaftay madaxweyne waanu sheegay Xasan Saciid anigu ninka mar baan arkay inta noola xayaatadayda Xasan Saciid nin degan oo aamusan oo easy ayaanu arkay maalinta أنا أقول كان قاهرة يعني خلينا نقول واحد من عيسى وهالكن أراس أيام يمد حاس كيسي سجى وجواله ولا لهيني ولا لهين ماشى قاهرة دقيقين أيوه يمدي ولا نص شجانين كلاون متقلب سجوا وقال كفرديا ونصلامي ندجن أو آد أمي سامن بوها هالكن الثمان شركة بدل ما كلاه وسديتك إلى لبي سديتك تود حاسة مد هاد ما قرنا يوم مركز سجوا عراس سالك يمد marka nin fiican baan anigu arkay marka ilaa imikana dadku waa nin wanaagsan bay yiraahdeen aniguna 10 jeer ka badan baan kala hadlo Xasan Saciido meeshan waxba rugmaday boorkii waa rugmaday dad baa buraya oo dhibaataynaya oo duleynaya oo baylaha baa jirto markabka waa laga baxsaday dadkii baa ka baxsaday oo markabka qiimihiisa ma 2 milyan iyaguna meel la xamaday 2 milyan ku soo qoray meeshana waxa waalaya qolo ugu tala gashay oo mishaar kale ka qaadata Dubai ama Berbera ayaa doonaysa inay xarkaha u jiidaan albaabada u xidhaan waxa la isticmaalaya gooshe iyo ninka kale la yiraahdo carasida dad buu eerayay la leeyahay ma la leeyahay waxa isku reer yihiin buu leeyahay maxay ahayd xaddi war xaddi isku reer cidna maaha xaddi waxa isku reer yihiin habarawal waxa isku reer yihiin Yusuf maxay ahayd Yusuf Afrikaan iyo tiimka ee maaha ninka reerka iyaga ما بحية باهذا لقى قاضي طلق باهذا طلق لقى قاضي ننها كل باتين حد بعد وحسكتين حد رير كي قاعد نجا ما
absolutely ha ku dhibaateyn dadka xaddi waxaan isku nahay ma jirte reerkaasi waxay isku yihiin marka meeshii aan ka hadlaynay way dhaaftay halkani way dhaaftay waxaan naqaanay boorka Jabuuti dhibaatada taalla reer Gabiley ku hayaan tii aan garanayna u dhaafay ilaahay baad leedihiin hadda imika alla baryo wax kala ma hayno madaxweynihi waanu sheegnay xasan siciid waanu sheegnay dowladooda waanu sheegnay meesha qiyaamaha ka baxaya waan sheegnay laakiin marka wax taal weydo ee waxba qabsan kari weydo waa la baryaa alla baryo wax kale ma jirto ilaahay baan idinku xawilnay dhahada idan sharci idinka qabanaya ma jirte meesha reer Gabiley baa iska yeeshay wax idinka qabanayaana ma jirto alla barya oo ilaahay baan kugu xawilnay dhahada habar washa meesha idinku haysata oo ilaahay baan kugu xawilnay dhahada kuwan boorka dadka ku dhacaya maraakiibta baadhanaya ee markab iska taagan 2 milyan ku soo qoranaya way awood kale ma jirto way dhaaftay waxaan ka hadli lahayn wax bili aadanku ka waramaan way dhaaftay meeshan waxa ka jiray Soomaaliya aad baan idin salaamaya meel kasto dunida joogtaanba markasta dhibaato kolba wax ka daran un baad arkaysaa wadarkaygo dhibaato arkaysaa yani waxyaalo aad la yaabto qabuunyo ninka qabuunyoonaya nin buka oo xanuunsanayo cuqdad qaba ayaa la yiri waliba umad baad hogaamiye u tahay waa nin xanuunsanaya waa cuqdad caabuq buu qabaa caloosha u fadhida xumaan baa caloosha u fadhida wax alla wax ku dhacay garan maayo Soomaaliya ay wax ku soo bartaa lagu yiri Xamuud on ku jiray lagu yiri ya diyaarad buu gaadhay la inuu baalaha cabeeyo kuwa rasaasta second pilot ka rasaasta cabeeyo habali cuqdad baa haysa Soomaaliyeed waxaan u sanaya isagoo saa waxaan u sanayo dhiman doona hadii alla yiraahdo aad baan idin soo salaamaya